bareer isaga dilo oo qoriga la isaga qabto shacabka Soomaaliyeed oo dil la isaga geysto si aysan u dhicin waxaan codsanayaa in askarigan lagu xukumo dil toogasho ah sida ugu dhaqsiyaha badan loo dilo inkasta oo ay banaanjoog ka ahaayeen dadyoga qaar haddana waxaa howlka maxkamadeynta 23kan eedeysane oo uu ku jiro General Shagow Axmed Cali waxaa buux dhaafiyay qaar ka mid ah madax dhaqameedyada beelaha Jareerweyne eedeysanayaasha ayaa ugu horeyn la weydiiyay eedaha loo haysto iyo jiraanshahooda waxaana lagu soo daray eedaha kiisas hore u dhacay oo xal laga gaaray waxaana intaasi kadib la guda galay dooda dhinacyada ee xafiiska xeer ilaalinta iyo sidoo kale difaaciyaasha eedeysanayaasha isor istaag iyo soo bandhigid waxyaabo kale xeer ilaalinta ayaa la timid goobjoogayaal dhacdooyinkii isxigxigay ee dhacay 13kii 18kii ilaa 19 Agoosto sanadkan waxayna isugu jireen askar iyo saraakiil qaarkoodna sheegay inay goobjoog ka ahaayeen wixii maalmahaasi dhacay taliyaha saldhigga galbeed ee degmada Dharkiinley ayaa sidoo kale qayb ka ahaa dadka la socday dhacdooyinkaasi oo isagana maxkamaddu ay su'aalo ka weydiisay sida uu xaalku ahaa kiiskan oo muddo saacadaha qaatay isla markaana aan fadhiga la isaga kicin ayaa qaybtiisii labaad la soo gabagabeeyay xilliyada maqribada waxaana maxkamadda ay sheegtay inay go'aan ka soo saari doonto sida uu warbaahinta u sheegay gudoomiyaha maxkamadda darajada koobaad ee ciidamada qalabka sida gaashaanle sare Xasan Cali Nuur Shuute